sidaas baqdin baan meesha ugu nool mar hadday maska dishay bisada qasrigaasay ilaalo ka tahay hadda kadib laga qaadi maayo iyada miisaankeeda oo dahab baan ku siinayaa ay qaado qofkii lahaa bisada u geebu yiri halkiibuu ninkii oo yaaban yuu yiri warbaa hagaagay balkeen inkastoo aan jeclaa ciidi wixii lagu bedelayna naagta u geeyay haddana hadday wax ka faa'iido badan ay tahay miisaankeedii oo dahaba ayaa la siiyay naagta sidii buu ninkii ugu geeyay halkii bay naagtii ya ilaahay wax badan siiyay halka waxaad ka garan kartaa qiimaha quraanku leeyahay quraanku qiimaha uu leeyahay iska daa dad uu galo iyo meel uu galo iyo meel la dhigo iyo meel lagu barto iyo meel isagu iska daayay waxa qiimada iyo wanaaga uu leeyahay iska daayay xitaa ciidi lagu maydhay baa waxay dhashay dahab iyo dheeman iyo luul ayaa dhashay marka sidaa darteed ba haweeneyda waxay ka fakartay haweeneyda waxay ka fakartay marka waxa loo baahan yahay sheekada waxaanu ka baranaynaa in quraanka la qiimeeyo oo la sharfo oo la karaameeyo oo la qiimeeyo oo la sharfo oo la karaameeyaanu ka baranaynaa waa ka marka sheekadii waad aragtaayo haweeneydii waxaan ciid ahayn iigu bedeshay dahab baa loo keeno ay markii dambe nolol fiican iyo qof hanti laho meesho dhulkii laga yaqaan ay noqotay daawadeel dhageystay